yiraahdaa Hajiroog waxaan kamid ahay odayaasha reer Wacayslood kamid ahay horta anagu ma aanan maqal waxa la yaab leh oo leenahay oo adduunka maqashiinayna ummadda Soomaaliyeed ee xishoonaysan aanu sheegayna halkaaniya dhulkaan Ilaahay baa maamul u dhisay maamul Itoobiyana waa ka leeyahay ummadda Soomaaliyeed ummadda shalay gumaadaysay bariga inay ummadda Soomaaliyeed gumaado inay jid u falato laga dhageysto qof xayaato loo dhageysto aad iyo aad baan uga soo horjeednaa haddaanahay ummadda Wacaysle ee gobolka Galguduud degan Sheekh Cali Gacame waxa kamid tahay nabadoonada beesha Muruusade adinkuna sideed u aragtaan in heshiiska lagu saxiixay madaxtooyada magaalada Muqdisho ee la xiriireen gobolada dhexe maamul loo dhiso ka oo Itoobiya ay galwadeennadiisa kamid tahay waxaan salaamaya idaacada Al-Furqaan iyo nabadoonkaba waxaan qabanaa sida nabadoonku oo sheego kala qabanaa dadka ayooda iyaga ka talinaya Itoobiya ayana ka talime waana la yaqaanaa cadu soo jireena waaye cid wadaya iyadana isku mowqifan ka taaganahay maamulna waa noo dhisan yahay maamul islaami ah hadda noo dhisan ilaahayna waa isaga noo xoojiyana waa rajeynayna dadka wada maartay barnaamijka ku lugta leh maxay tahay fariinta aad u gudbinayso dadka wada oo barnaamijka ku lugta leh fariinta u gudbaa waxa waaye Allah ka baqaano kitaabkiisana ha raacaan barnaamijkan dawladda federaalka ku lug leh marka sida tiraahdaan dadka qaar waxa laga yaabaa inay yiraahdaan nimankan waa niman dawladeed ah anagu meelay ka jirtaan ma hayn hadda meelay ka jirtaa ma hayno dawladeed anagu ma dhihin laakiin waxaan nahay dulmigan diidaynaa dawlad ma taqaan dad wax u qabay dalka wax u qabay diinta wax u qabay ma haynaba dawlad adigu maxaad u taqaan dawlad waxa la yiraahdaa mid dadkeeda diinteeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda daryeesh waa maqlaysa hadda badiya la kala gadaa waa maqlaysay maaragtay على كل حال umada Soomaaliyeed dhamaanteed waa dhibane waxayna dhibana u tahay dulmiga lagu sameeyay oo dhinac walba oo aan hadda ma taqaana qayb kaliya aan ku koobnayn dhinaca diinta dhinaca ma taqaana badda dhinaca ma taqaana nimana ka shaqeysta ma taqaana wadanka raga ka shaqeysto ragaan maaragtay hadda dawladda sheegaha ayaka ka sareeyo oo taladooda ku shaqeyn oo taladooda wata oo maaragtay عوية مالي وحي ربان ديلو وحي ربان قاطع ayaa jooga wadanka waa la wada ogyahay oo taas ma qarsoon nimanka waayo marka waxay doonaan sameey waa Itoobiyaanka iyo jireertan hadda ma taqaana Burundi iyo kale iyo Sierra Leone iyo Kenya iyo wixii lamida boqontii ma taqaana wiligeed aan haweysana hatta maartay anaga la hoos mariyay sida Kenya kale balayka ku tabaalo u fadhiya waa kaabalada ragada u fadhiya waay nabadoon roog waad maqlaysaan u maleynaya waa ku maqlaya nabadoonka waa salaamaya wadaadu inta ka gadaal waxa la horta nimanka dawada ka riixay horta waxa la yaab leh ninka dhacaya weer baa soo hoynaya ma faham waayahay Itoobiya Soomaali lagu fidinaysa ninka yirina waa nin dhacaya waraaba soo hoynaya iyo weer ma fahamtay waaga waxaan ilaahay kama cabsanayaan oo ilaahay ka cabsada malihin laakiin saafta Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed muslimiinta saftooda ka cabsadaan leenahay ilaahay haday ka cabsanayaan kutubka alle kumay been abuurteen ilaahay cirkiisa iyo dhulkiisa sharci u dajaynaana ma dhaheen waxaan leenahay saafta muslimiinta ka cabsadaan leenahay marka waad goodinaysaa waxaad leedahay aan afkan ciid u daraynaa cidii noo keenta wax aan kitaabka Allah ahayn waxaan leenahay gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed iyo aabbo Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed xayaata ku jirto ma aqbali doono Itoobiya aydi gumaysato in yar oo daba dhilifo oo lagu adeegto oo Mareykanku carreetur ka dhiganayo muslimiintiisa ka difaacanayo shaqa u dhiibtay ummadda Soomaaliyeed bal iyo dibadda joogta gumaysi ha gasho ma aqbali doono waa ka soo jeedna nabadoon Cali Gacme federaal weeyaa la yiri dawladda federaalka marka waxa la leeyahay iminka gobolada dhexe maamul loo sameeynayaa oo maamul goboleed waxaad ogtahay cadaado madaxweynaha jooga gaalkacyo madaxweynaha jooga Kismaayo madaxweynaha jooga Xasan Sheekh oo madaxweynaha Soomaaliya sheeganayo meel buu jooga wuxuu soo uma muuqdaan degmo iyo madaxweyne horta waxaan federaalka la yiraahdo raga samaystana kuma dhaqmaan kuwana ma yaqaaniin waaya waxa umada la isku dira oo dadka la isku dira oo la raba dirif bedeliska dadka u xiga inuu dilo waay waaya
waxaan leenahay marka federal ma rabno dad muslimiin aan nahay derisaan nahay isku diinaan nahay isku dadaan nahay isku dalaan nahay isku mataqaanaa danaan nahay waxaa danteena wada ninka kitaabka ilaahay uu soo dejiyo oo samaawiga iyo sunnada nabiga ninkii wada kaasaa danteena wada kaasaana la jirnaa insha Allah nabadan roog ee federaal maxaad u taqaan adigu federaal waxaan u aqaanaa wax kasta oo diinta islaamka kasoo horjeeda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimid asxaabtiisii rag kamida markaasoo yiri manin qoom naxnu lmuslimuun bay yidhaahdeen manantay yidhaahdeen ana rasuulullahi buu yiri ninkii kasoo horjeedana anagu fadlan uma naqaano furuqaan u naqaan furuq marka waxaan leenahay ha ka tanasulaano haddii salaadaan dukanayna ay leeyihiin hadday rabaan inay cadaabka ilaahay ka badbaadaan ummadda soomaaliyeed sheefteedana inay ka badbaadaan hadday doonayaan gaalada caratuurka ay u yihiin ha ka haraano hana kuwaana qaataano ilaahay maalin walba mid sababtiisa inuu keenayo ha kuwaana qaataano ummadda soomaaliyeedna Itoobiya ma gumaysan doonto waa cambacaana ka baxay ama lagu celi karaa maya Itoobiya Soomaaliya inay gumaysato waa xirkoo caad laga waayo ummadda Soomaaliyeed waa gumaysidiid hablaha Soomaaliyeed dibadda jira hablaha Soomaaliyeed dalka joog wiilasha Soomaaliyeed odayaasha Soomaaliyeed naftooda iyo maalkooda waxay ku difaacayaan kutubka Alle Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gaalnimadooda waa cadeeyay waman lam yaxkum bimaa anzalallahu fa ulaa'ika humul kaafiruun gaalnimada ha ka soo ilaano yaan carruur u noqon Maraykanku yoosa ku qaraaban leenahay ummadda Soomaaliyeed ee u daba socotay gabadhiska waxa ka soo ilaanaan leenahay dad badan ayaa maartay waxa la yiri dawlad baa leedihiin federaal baa idin fiican beesha caalamka ayaa idin taageersan marka maxay tahay fariinta kuwa loo diri karaa nabadoon shaqaale baan siinaya fariinta loo diri karaa waxa waaye annaga kitaabana dhaxyaala samaawiya oo ilaahay noo soo dejiyay oo ninkii qaata oo san lumeey cidii kitaabkaas aan qabsanna waa halaagsamay aakhirada iyo adduunba waxaan leenahay marka war ilaahay ka cabsado waa dhimanaysaan inta yaroo idin dhiman oo mataqaana qoraanka intana ka soo bixin ruuxna aan la keenin meesha mataqaana qarqarada kitaabka qabsada oo ilaahay maaragtay raali geliya marka gaala raali gelin lahaydeen saasaan leenahay nabadaro gaalo kala duwan dalka ku soo duushay badda cirka bariga intaba waa ay joogtaa dadka qaar baa laga yaabaa marka inay taasi xoogaa yare walaac ku beerto ama cabsi geliso kuwa maxaad leedahay waxaan leenahay ilaahay baa cadeeyay wal caaqibatu lil muttaqiin bad haday ku soo duuleen inta wanaagsan muslimiinta leh gaalada soo duushay ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidoo fircawn halaagi doona yayna waxba dadku arkin khabiiska tirabadiisa gaalada kufaarta duulaankooda waxaan leenahay yayna idin baqdin gelin waa xulufna waxba ooysan male waxaan leenahay nin kasta oo aqli la aanu sheegaynaa nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam kastoor xukumi jiray kutub samaawi oo ku xukumi jiray ilaahay rasuulkiisa ummaddu ay ku been abuuranin waxaan leenahay kutubka Alle oo yimaadiino gaaladana ilaahay baa quraankiisa ku sheegay warkii ilaahay war ka fiican minay ogyihiin ayay u taalo gaala ka dhaadhisay ilaahayna wuxuu leeyahay ninka isla gaalo islaahay wada waxaan u sheegaynaa war hadalkii ilaahay ha hosiistaano wal kaafiruuna hum daalimuun kelmadda ilaahay ha hosiistaano ilaahay baa run sheegay gaalada iyo intuu adeegaysa been sheegayaan wal kaafiruuna hum daalimuun ummadda Soomaaliyeed maslaxadooda ma wadaan xoolaha ay jirtaan Allah caanaha ka soo miiray hoosi dhig caanaha ka siiyay ayada hooyada dhaxdooda ku beero indhaha u sameeyay xirarka iyo dhulalka iskale caadka bayna samaawaati wal ardi ku saqiray Allah ka cabsaan yayna Maraykan ka cabsanin annagu waxaan nahay la yaqaafuna lawmata lahayn inta Allah maysa ka badmaysa ummadda Soomaaliyeed gaalana dhagtay dhiigu dari doontaa gaalada ha loo sheego nabadoon shaqaale waxaad diidantiin maamul dhinaca federaal ka yimaado gobolada dhexe aad iminka kala hadlayso in loo soo sameeyo maxaad haysataan bedelkeeda waxaan haysanaa ku dhaqanka shariicada islaamka oo aan meel mataqaana dalasho lahayn oo mataqaana sidii ilaahay ugu talagalay
oo nabi maxamed oo soo dhiibay taasaan haysanaa marka taas annagana ma khusayso mana rabno ana soo gaarina insha Allah dad badan laga yaabaa inay ku dhageysanayaan oo qaarkood ee qurbaha ay joogaan qaarna ay joogaan gobolada shariicada islaamka looga dhaqmin marka si aad ugu faahfaahay nimcooyinka aad haysataan annaga waxaan haysanaa ku dhaqanka shariicada islaamka labadii wax kala galaan mataqaanaa kitaabka ayay isla aadayaan iyo koo isjecel iyo koo mataqaanaa aan dagaalsanayn iyo koo maaragtay kulli mid kastaba qalbigiisa oo xasilan yahay annagu marka ma nihin dad maaragtay gaala oo hawada raaca waxaan nahay dad ahlu sunna ah oo mataqaanaa kitaab ilaahay oo samada ka soo dejiyay 1435 sano ka hor haysta marka umalayn maayo in maaragtay ayna soo gaari doonaan kuwa la sheegay oo federaalka iyo wixii lamida hadiiba xataa Soomaaliya maamul laga dhisayo cilmaaniya maxaa dawlad dhaxal looga dhigi waayay kula taa oo federaal loo yiri oo degmo kasta iyo tuulo kasta in yiraahdo ana madaxweyne ka ah keenay maxay tahay ujeedada meesha ku jirta waxa umada lagu dhibaa waaya horan kugu sheegay dadka la isku diraa hadda waa ogtahay inta hadda ma taqaana raayada islaamka ay ka taagnay waxa dhib ka taagan iyo waxa isdil ka taagan dhamaantoodba waxa ay ku socdaan warkaan waay nin walba waxa la yiri adaa iskale meeshaan madaxweynaha tahay kana adigoo sidoo kamid walba dhabarka laga soo taabto marka ma yaqaanin waxay u shaqeeyayaan iyo waxay ku shaqeeyayaan midna marka Allah tuso aan leenahay ma taqaana dariiqa sawaabka rog meel kasta oo dawladda federaalka ay tagto oo maartay laga dhiso maamul aan shariicada islaamka ku saleysnayn sida kuwan federaalka ah oo madaxweyne goboleedyada ah dagaal qabiil baa ka dhaca muran baa ka dhaca dood baa ka dhacda magaalooyinka qaar xataa waxa dhacday in qabiilooyinka qaar dadkii ka soo jeeday laga saaray ama maartay gumaad lagula kacay marka sababtaas maxay tahay kula taa wala yaqaana waxa la yiraahdaa maqaalinta amba habka ay wax u isticmaalaan ay u dhigtaan gaaladu waa qayb iyo xukum dal umadu leedahay maahay umad isku jeedaayo oo islaynaysa gaal arkimayso gaalkuna maqsadka uu ka leeyahay waxa waaye umada Soomaaliyeed inuu isku diro haddaan tusaale ku siiyo hadda ninka walaalka ee qadka igu jira waa nin mursada waxaan u dhahay 5 sano oo dalka walaayadu ka talinaysay raayada tawxiidku ay ka babanaysay ayaan kala dadbaadnay oo bariga walaal ku nahay oo isku dheelmadna oo isku hadafnay shalana xadow isgaadayaan haynay maskax kufaaru degisaan ugu maamulay danaha kale oo wadaha bariga la isku dirayana waxa waaye gaalada ayaa waxay qabtaa muslimiinta dadka sheeganayo isku dira dibacdoodi madoobeedi guduud waaye adinkana aad ka nasatiino waa maqsad yuhuud ka dambayso waxaan leenahay umada Soomaaliyeed dawlad ma ahaanin waa qayb iyo xukum waa doctor Maxamed Siyaad Barre dawlad military ah waxa wahay dalka Soomaaliyeed oo ilaalinayay waxaan leenahay nimanka bariga talinayo umada Soomaaliyeed hawrkaaro waa duumo waaye dalka uma wanaagsana waxaan leenahay gaalo iyo gaalo la jir iyo intay ku adeegtaanba annagu waxaan leenahay ilaahay wuxuuna leeyahay federaal naqdana male fa in tanaazactum bi shay farduhu ila Allah wa rasul ba ilaahayna leeyahay umada Soomaaliyeed ha maqasho gaaladu ayaga afkooda waxay ka leeyihiin ayagoo dadka maangaarta ay qalbiga ka hadayeen waxay leeyihiin dalka nabadiidku ka jiro ka taliyo nabada ka jirta dalka nabadiidku ka taliyo nabada ka jirta war ilaahay baa kugu dhaartay qofka aqliga oo nabadiid iyo nabada ka jirta ma isqabata waa xoob caaro federaal maahin waa boodil umada Soomaaliyeed ay gadanayaan waa uhiib bada uhiiba dalka uhiiba Ethiopia barreegay Uganda laga galay inta kale way umada Soomaaliyeed waxa la dhaxdaa noo dhuufan insha Allah مولانا دينتين نواتي نبي محمد إلهنا نوشيري كتبك إلهي وحكم مالسكو حكومة إلهي نليها فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله marka kuwaas wadada ilaahay bay ka lumeen koodishaa wata koodishaa iyo dastuurka wato ku been abuuranaya xataa haday dawlad xilib gaaraha waa jiri jirta dalka laakiin dawlad qarameed bariga waa dalka qayb iyo Mareykan qayb ka gad ee qaybo meel ka gad ee Kismaayo ka gad ee Ethiopia ogaadeen ka gad dalka Soomaaliya qayb waaye ma hayno ku saataa bari baana kana ilaahay baan ugu xidur daaranayna
nabadda shaqaale maxaa ku soo gabagabeynaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa in la isqabsado gacmaha oo islaamka maaragtay loo gargaaro haddana ilaahay u gargaarno ilaahayna waa noo gargaaraa waxaa nagala rabaa marka inaan sabirno gaalada iyo intii mataqaanaa saaxiibala ahna colay noo yihiin insha allahu tacaala aad baad umahadsantihiin labadiinaba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام